la suuriyaa waa in daroogada qalaad ee dadkeena caafimaadkiisa waxyeelada ku ah iyo kartida shacabka meesha ka saaraysa waa in la suuriyaa waxaan aad iyo aad ugu hanweynahay in xukuumaddanu ay qodobadan aynu sheegnay ay diyaar u tahay inay shiiqiso oo suuriso oo si weyn wax uga qabato shacabku yee ka hor dhicin horumarku wuu socdaa shaqadu way socotaa shacabku yuu ka hor dhicin halla sugo xukuumaddani dee waxay jirtay muddo yaroo 50 cashaa looma baahna in laga hordhaco looma baahna in laga degdego looma baahna in la fahmi waayo geedi socodka siyaasadda degan ee ay ku doonayso mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha waxaan aad ugu hambalyeelaynaa ururinta wada tashiga iyo dhexdhexaadnimada iyo sida uu asxaabta qaranka ugu yeedhay ee mar walba ula tashalayo aad baan madaxweynaha ugu hambalyeelaynaa waxaan aad ugu hambalyeelaynaa madaxweynaha karaanka iyo kartida hufan ee xilkasnimada ku jirto ee uu doonayo inuu qarankiisa ku hogaamiyo isagoo aan kala jeclaysanayn goboladiisa deegaamadiisa iyo shacabka Soomaaliland isagoo aan kala xigtaysanayn oo kala sokaysanayn madaxweynuhu mar walba ololihiisii waxaa ku jirtay gobolada bariga iyo gobolada galbeedka waan is soo gaarsiilayaa si xor ah oo transparency ah ayaan isu soo gaarsiilayaa gobolada dalka waxa loo baahan yahay khaasatan shacabka gobolada bari in qabyaaladda dhulka la iska dhigo in colaadda sokeeya dhulka la iska dhigo in la fahmo dariiqa horumarka waxaanu ka filaynaa xukuumadda haddii waxaynu ka filayno inuu isla barbartaagi weyno oo aynu xukuumaddeenna gardaadi weyno oo aynu xukuumaddeenna daadihi weyno in xukuumaddeenna u dulqaadan weyno inta ay diyaarinayso hogaaminta iyo shaqada qaranka taasi waxay noqonaysaa in ay arintaasu ay tahay bisayl yaraan uma baahnin maanta waxaynu nahay qaran majuura oo 27 sannadood jir ah oo yaqaano sida la isugu tanaasulo oo yaqaano sida wax loo wada qabsado oo yaqaano sida wax loo contribution gareeyo waxa la doonayaa in xukuumadda si positive oo aan negative ahayn loo tilmaamo oo loola taliyo intaa waxaan ku darayaa arrimaha gobolka Sanaag waa gobol ballaaran oo aan ka soo jeedo oo dad walaalaah oo ilbaxay ay ku nool yihiin waxa inagu ceeb baryahan dambe in deegaanadeenna ay ka jirto colaad sokeeye iyo curfi aan cilmiyeysnayn taasi waa dib u dhac waxaan leeyahay mas'uul kasta oo gobolka yimaada oo dawladda dhexe u soo magacawdo oo barasaab ama haddaanu nahay ama afarta jihee gobolka
waxa weeye waxaa nagu waajiba inaannu la shaqayno isna barbar taagno. waxaan kaloo halkan aan ka iftiimilayaa shacab weynaha reer Sanaag waxay diyaar u yihiin inay wax beertaan, inay wax bartaan, inay nabadgelyada ilaaliyaan. Somaliland dagaal arrimaha dibadda baa ku socda, ama siyaasad ha ahaado ama ha ahaado military. waa in aynu fahanaa dalkeenna in dagaal arrimaha dibadda ay ku socdo, in dagaal arrimaha dibadda ay ku socdo oo mid siyaasadeed iyo mid militariba u jiro. waxaa loo baahan yahay hoostiimadaye hareertiimadayo bay Soomaalidu ku mahmahdaa. waa inaynu fahanaa siyaasadda waddankeenna dibadda kaga socota. waa inaynu fahanaa midnimada, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. waa in shacab weynaha reer Somaliland waxa ugu baaqayaa in la xoojiyo midnimada in la xoojiyo, nabadgelyadana in la xoojiyo. waxaan kaloo reer Sanaag ugu baaqayaa nabadgelyada in la adkeeyo. wixii dagaalada yaryar ee dhacaya waxa weeyaan waa in caqligeenu shaqeeyo, cududeennana aynu xakamayno. nabadgelyada waa inaynu isu tanaasulnaa. waxa weeyaan waa inaynu isu tanaasulnaa, waa inaynu isu dulqaadanaa, waa inaynu saynu u dhisnaa jirnay dib u xusuusanaa. waxa weeyaan horumarka ayaa maanta dunida wanaaggaa la ysku dilaa, laakiin xumaanta la yskuma dilo. waa in la fahmo in xukuumadda la ysgarab taago, nabadgelyada la ilaaliyo, beelaha walaalaha inta yari dhex marta qurdufooyinka yare ka dhex jiraan ay islaab xaadhaan.